وهجاج داوديال halka aad weli nagala socotaan waa xarunta dhexe telefishinka Sam News uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan qasriga madaxtooyada Soomaaliland ay ka qayb galeen kulankaas oo madaxweynaha Soomaaliland uu hore ugu qaabilay madaxda ururada siyaasadda kadib markii ay ka codsadeen madaxweynaha hase ahaatee madaxweynaha Soomaaliland ayaa isagu maalinkii shalay tole waxa uu xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale ururada siyaasadda ugu yeedhay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka sidii looga wada hadli lahaa kulanka maanta ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland ee ay goobjooga ka ahayeen madaxda ururada siyaasaddu kama soo qayb galeen labada xisbi mucaarad waa xisbiga UCD iyo sidoo kale xisbiga wadani hase ahaatee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCD injineer Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay kulankii maanta ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi aanay iyaga wax faa'iido ugu jirin isagoo ka soo horjeestay waxaana uu gudoomiye Faysal uu ku adkaystay in wadanka aanay ka dhacayn doorasho ururo isla markaasina ay tahay doorasho ururo oo la galo mid xaaraana waa sida gudoomiye Faysal shir jaraa'id oo maanta xaruntiisa Hargeysa uu ku qabtay uu ku sheegay dhinaca kale mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ilaa hadda iyagu yeedmadii madaxweynaha Soomaaliland ee ku aadanaa kulankii maanta Hargeysa ka dhacay dhankooda aanay ka hadlin si kastaba ahaatee Soomaaliland waxa weli kor u sii kacaya muranka siyaasadeed ee ku aadan arrimaha doorashooyinka taas oo la isku mari laayahay doorashada ururada iyo ta madaxtooyada tii la geli lahaa doorashadeeda inkasta oo komishanka doorashooyinku uu dhawaan cayimay doorashada ururada in laga soo hormariyo ta madaxtooyada taas oo wadanka mar kale u sii abuurtay khilaaf siyaasi ah u dambeyntii khilaafka siyaasiga ee ku aadan arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinka u dambeeyay waxa uu muuqdaa mid soo laba kacleeyay wararka ku aadan arrimaha siyaasadda iyo xaalka siyaasadeed ee Soomaaliland Sam News dib uga daawo macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xad lahayn fadlan ku shubo 4,000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afargees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib biinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha